sabab aan ku shaqaysto oo magaalada ku maray ma haasto qofaa xuriye ah shaqaysan karo qofaa xuriye ah codka iyo muuqba garatay kan waa maxamed cabdiraxmaan iyo afadiisa ruqiya cabdullaahi lamaanihii qaranka balse maanta uu wehelinayo wiilkooda yar ee aan weli sanad jirsan lamaanahan oo hadda ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah tan iyo markii uu geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer Yariso kaasi oo markii horeba dusha u ritay noloshooda cidla ciirsi halis amni iyo sidoo kale nolosha oo ay xabsi guri ku noqdeen ayaa isugu darsantay maxamed ayaa si dareen leh iiga codsaday in aan muuqaalkiisan la wadaago bulshada si intii caawin kartaa ay u garab istaagto qoyskiisan ehelka u noqday murugo iyo nolol adag goortan guurka markaa guursaday inaa adeerkayga fooqa loo dilay suxnaana loo dilay qof bilaadan saas looma dilo waan la gubay guuga kadib waxaa dhacday inaa aniga oo marba meel ku dhumano meelaa ku harsan aba ka sawaani marba meel ku dhumanayni waxaa wataa adeerkayga garab uu siinay gabartii hadii adeerkayga la dilay kadib aniga inaa la dilay isweydinay qofaad isweydinays anina cabsi darteeda gabartii la dhumnaa marba meel seexaneen markaas kadib waxaa dhacday in dad garab nagu siiyaan oo meel nagu qariyaan markii meel nagu qariyaan kadib waxaa dhacday inuu Yariso inuu garab na siiyo oo meesha naga soo kaxeeyo markaas kadib meesha asana keenay intuu noolaay maasha Allah gabartii Ilaahay wiil iga siiyay wiilka hadda waxaan ku sameeyay adeerkayga Axmed Doole aan ku sameeyay markaa ku sameeyay adeerkayga Axmed Doole Yariso waa Allah u naxariisto waa dhintay markaas kadib Yariso markuu dhintay kadib ilaa markaas wax oo daryeel ah ma haasano meel cidla taaganahay haddii aan shaqaysan lahayn sabab aan ku shaqaysto oo magaalada ku maray ma haasto qofaa xuriye ah shaqaysan karo qofaa xuriye ah ma shaqaysan karo runtii inkasta oo hadda ruqiyo iyo maxamed aad isku jecel yihiin iskuna qanacsan yihiin haddana waxay markasta u baahan yihiin inay helaan nolol wanaagsan taasina waxay ku hergeli kartaa kaliya shacabka Soomaaliyeed oo garab istaag u muujiya lamaanahan isjeclaaday balse waqtiga iyo qadarta alle ay ku dhacday waa kan mar kale maxamed oo cod dheer walaalihiisa Soomaaliyeed kula hadlay waxaan ka rajaynayaa Soomaali inay garab qabtaan ay garab isiyaan inaa bilaadanimo la fiiriyo oo muslimnimo la fiiriyo oo islaamnimo la fiiriyo oo garab la siiyo walaalay waxaan ka codsanayaa Soomaali inay garab isiyaan gudoomiyaha gobolka cusubna asna waxaan ka codsanayaa inuu garab na siiyo oo Soomaalnimo waxaan ugu qabto si booskii gudoomiyaha Allah u naxariisto Yariso inuu noo buuxiyo aan ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka cusub taasna ka codsanaynaa dawladeena sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in garab na siiso ayadaha adduunka dhan waxaan ka codsanaynaa sidoo kale ayagana inay garab na siiyaan aan ka codsanaynaa haddaba walal caawi oo ka qayb qaado gurmadka walaalkeen iyo qoyskiisa